waxaad maqlaysaa nina cabasho badan iyo cabaad badan ka dhacay koonfur waxay moodaysaa inay weli Soomaaliland xukunto dad riyoonaya ayaa joogo hurdo ku jiro weli soo toos qaar Soomaaliland u dhashay meesha u shaqo tagayna xalay way hadlayeen waxay lahaayeen waxaan ka xunayn Soomaaliland dadka laga soo saaro horta Soomaaliland ninkii aan u dhalan waa laga saaraya Soomaaliland ninkii aan u dhalanin waa laga saaraya dhibaato haddii u geystana way ka sii xuntay dadku wadaniyada waxay u samaystaan waxay dhalasho u leeyihiin waxa imika aad intaas ka carta Djibouti ma gali kartid ma gali kartaa kaad baa lagu weydiinayaa sharciga dhalasho marka inagu hadduu kii halka ka soo hangagaariyo kii halka ka soo hangagaari labadii xuquuqdiina la leeyahay muwaadiniin meeyna marka ma sheegan karnaa dalka waxaan u sheegayaa kuwa Soomaaliland u dhashay Soomaaliya u shaqo tagay habeenadan oo dhan media ku qaylinay waa nimanka xabar degan waxaan u leenahay nimanka iska soo saara baabuur sidaan anagu u soo saarnay sideeduu soo saara iyagoo ka tiinadaysan oo soo gudbiya taasaan ka codsanayna iyagana dalkana wixii aan u dhalan waa laga saaraya dalka wixii aan u dhalan ee dhibaato ula jooga waa laga saaraya Soomaaliya anagu ma nihinada Soomaaliland baan dalkayga waan u dagaalanay dhiig baan u daadinay waan xoreysanay cidna nagu dul haysan mayso anaga qolna naga dul shaqaysan mayso marka madaxweynaha iyo xukuumadda go'aan kan gaadhay aad iyo aad baa ugu mahadsan yihiin waxaan arkay qaar badan oo Maxamed Kaahin baa go'aanka la saxanood gaadhay wasiirka arrimaha gudaha weeyaan Maxamed Kaahin amnigana isaga ka mas'uula inta Ilaahay ka sokaysan cid kasta oo aan Soomaaliland u dhalan oo dhibaato la dhex joogta adeer waan ka saarnaa ninkii wax naga qaadayo shalay waxba naga qaadi weeday kaalay maanta wax naga qaad kuwa iyagana iska soo raafaan u leenay intaasan Soomaaliyeena hawada u maray maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo macmiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo MiFi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan